kadib shir jaraa'id oo ay maanta xarunta wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo ciyaaraha Puntland ay ku qabteen xubno wasaaradda ka tirsan iyo qabiiro dhinaca ciyaaraha ah ayaa waxay si isku mid ah uga hor yimaadeen doorashadii shalay lagu qabtay magaalada Muqdisho ee lagu soo dooranayay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta dalka Soomaaliya kaasi oo noqday Cabdiqani Saciid Carab. agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha Puntland Axmed Cabdalla Tigana ayaa warbaahinta uga waramay ujeedka shirkaasi jaraa'id isagoo sheegay inaysan jirin cid Puntland u matalaysay inay uga qayb gasho doorashadii lagu qabtay magaalada Muqdisho. in cid Puntland matalaysay oo ka qayb gashay ama wakiil uga ahayd Puntland inaanay jirin waxaanu kala cadeynaynaa inay ahayd arrin musuqmaasuqa oo muddo aanu daba soconay FIFA aanu u gudbinay iyo CAF xiriirka kubadda cagta Afrika labadaba barnaamijkaasna uu yahay barnaamij lagu khiyaamayo horumarintii sportiga ee jiilalka soo socda ee kubadda cagta. Cabdulqaadir Cali Daahir Juula iyo Cabdirasaaq Nuur Hala oo labadooduba kamid ahaa xubnihii shirkan jaraa'id ka hadlay ayaa dhankooda sheegay inay baaq u dirayaan xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA inay soo farageliso arrimaha ay Puntland ka cabanayso. annaga hadaynu nahay reer Puntland xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya doorashada uu qabtay ma aqoonsani mana aqbal doono insha Allah hadii la yiraahdo xiriir fiican baa hadda noo socda annaga iyo FIFA insha Allah meel fiican buu marayaa insha Allah waxaanu jecelnahay in aan annaga halkaan ku qabanno hadii la yiraahdo doorasho xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya oo xalaal hadii la yiraahdo run ahaantii annaga mowqifkaygu waxa weeye doorasho xalaal oo Soomaaliya oo dhan ah inay dhacdo uma xaglinayna inay Puntland wax sad bursi ah ay hesho oo Soomaaliya ka badan wixii lagu heshiiyay baa miro dhala runtii FIFA waxa xaakimka kubadda cagta Soomaaliya ayadaana kala saaraysa ayadaan dacwoonana ayadaa waxay tahay hadii rabidna dhaxdhaxaadkii ama udubdhaxaadka adduunka ah. Ubax Axmed munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen siyaasiyiin waxgarad aqoon-yahano ururada haweenka 25 kooxood ee heerarka kala duwan ee kubadda cagta ee gobolka Banaadir ayaa waxaa maanta ay ku doorteen gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta oo ay u doorteen Yaasiin Abuukar Cariif oo ah xogayihii hore ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta sanadihii 1995 ilaa 2001. Yaasiin Abuukar Cariif oo ay la tartamayeen laba musharax ayaa waxa uu ku soo baxay doorashadaasi intaasi kadibna waxa madasha ka hadlay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Cadda Gaabow. Yaasiin taariikhdiisa lagama sheekay karo isboortiga xaq uu ku leeyahay. Yaasiin waxa waaye dhal isboorti waaye ma aha magaciisa kaliya inuu maaragtay waxa ay soo maamulay oo asoo marka uu dhashay uu ku dhex jiray xaqiiqda markaan idin sheego isboortiga 60kii aniga Yaasiin tifoosyalaan ahayn 70kiina maamulkan soo galnay 80kiina madaxan ka ahayn aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waana soo dhaweeynaa sida sharafta leh oo doorateen Yaasiin insha Allah taala waxaan rajaa sidaasna inaa wada shaqay doontiin hooyooyinka gabdhaha yar yarka ah kulli inay ka soo qayb galaan maxaa jira isboortigu waa laf dhabarka mustaqbalka bini aadanka siiba khaasatan caruurta soo korayso waa muhiimadda ugu weyn ay maraan la mariyo in la baro waalidka sana inuu baro waxaan balyeynaya Yaasiin Abuukar Cariif gudoomiyaha cusub ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Yaasiin Abuukar Cariif oo ay maanta u doorteen 25 kooxood ee horyaalada kala duwan ee kubadda cagta ayaa waxa uu u mahad celiyay dadkii doortay waxa uu la sheegay inuu wax badan qaban doono sideedana xiriir wuxuu ku socdaa jecel ku socdaa xiriir sidiisaba nin hunguri doona wax kaba keeno xiriir waxa la rabaa nin u shaqeyn kara daacadda uga ah horumarin karana maanta meesha aan taaganahay waa u jeedin xiriirkeena oo soo jiri maanta meesha uu la joojiyeen waa arkaynaa waxaan u baahanahay dad aqoon u labahashan oo horumarin karo waxaan ballan qaadeenaa kooxeena qaranka oo markii ciyaar ay leeyihiin dhibcooyinkooda la tirsado inaan maanta wixii ka dambeeya aan la tirsan doonin isbuucan aan ku guda jirno ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka kala dhacay doorashooyin iska soo horjeeda taasi oo lagu dooranayay gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta waxaana toddobaadkan la doortay ilaa iyo 3 gudoomiye oo waliba hal xil loo doortay kuwaasi oo kala ah Muxudiin Xasan Cali Darbaweyne Cabdiqani Saciid Carab